على كل حال وحان لا yaab la iyada laftarkeeda in dad dhan ee mas'uuliyiin ah xildhibaano qaran ah maanta markay dhihi lahayn dhiiri gelin lahayn ciidamadooda ay dhiiri gelin lahayn haweenka ay dhiiri gelin lahayn cid kastoo isgarab taagan inay maanta yiraahdaan intay microphone qaataan dadkana soo istaagaan ay yiraahdaan ciidamadii waa jabeen ciidankayna waa la dilay ciidanka waa la yeelay saasaa dhacday shabaabku yaa guuleystay inay maanta yiraahdaan iyaduna waa nasiib darro shabaabku midka qoraysto xaga jira kaliya maahan shacabkuna waa og yahay shabaabka shabaab uu eka hore looga hadlay midka jeebka ku taakuleynaayo iyo midka ku taakuleynaayo afkiisa ciidamadaynu waa guuleysteen waana guuleysanayaan ma jabin mana jabi doonaan ma jabin mana jabi doonaan haddii ilaahay yiraahdo annaguna waa garab taaganna haddii ilaahay yiraahdo taasna waxaa daliil u ah kuwa rabaan inay maaragtay ku gambadaan ay yiraahdaan mucaaradnimo ka raadiyaan madaxweynihii dagaal aan dad lagala tashan ayuu galay cidda la tashaya waa xildhibaan meel iska taagan ama mid guri raadisa ama mid raba inuu siyaasad ku raadi meel lagala tashanaya waa maya cidda horu soconaysa waa la tashaya hore inuu socdaan dagaalkana way galeen kuwa dhahaya ciidamadayna waa jabeen ciidankayna mana jabi doonaan adiga baa jabayso waxaan leenahay xildhibaanow waxa aad dadka u sheegayso ka fikiraan leenahay oo siyaasad ku raadinayso mustaqbalkaaga kuma jirtaan leenahay waxaan rabnaa hadii ilaahay yiraahdo ciidankayna wixii dhiiri gelinaya hala sheego shacabkayna waxa dhiiri gelinaya hala sheego waxa dadkayna maaragtay moraalkooda dhisay hala sheego laakiin moraal jabin yaan meel la soo istaagin taasna sidaas ayaan leeyahay waa maasantihiin hooyooyinkaana waxaan leenahay si gaar ah in looga warhayo waa maxaa yeelay subaxdii qof soo tagayso ee inta halkaas timaado waxaad aragtaan dabkaas ku jirto ee shaqadaas qabanayso ilmeedii ka soo tagtay ee gurigeedii ka soo tagtay ugana soo tagtay inay u hiiliso qaranka Allahu akbar ayaan leenahay